noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladan lagu gunaanadayo ama lagu qatimaayo barnaamijkii gaadiidka muqdisho lagu soo bandhigayay oo runtii ah xafladii casho sharaf iyo isugu jirta shaqadii la soo qabtay in la isugu bogaadiyo in la isugu tahniideeyo meesha looga socdo in la isku warsado runtii aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa sidaan hore ugu soo dhaweynay iyo siday u dhacdana aad ayaan raalli uga nahay runtii waxaa kale oo runtii aan rabnaa ka wasaarad ahaan bandhigyada noocaana oo runtii dalka ku soo badanaya oo sektarro badan leh oo sektor walba uu si gooni ah uu runtii isugu abaabulayo waxayna tusaysaa ay tusaale u tahay ay yidiilo gelinaysaa dalkeenna waxaa weeye waa runtii iftiin waa runtii alxamdulillahi 10 sano ee ugu dambeeyay dalkeennu horumar ayuu ku tallaabsanayay sanadkii 2019 bilowgiisii ilaa sanadkan horaantiisa waxaa la qabtay runtii bandhigyo kala duwan oo sektarro kala duwan leh waxaa marka ilaahay mahadiisa dhalinyaradeenna oo boqolkiiba 75 bulshada ka ah oo runtii ah lafdhabarka dalka oo runtii wax soo saarkeena ugu weyn ama human resource-ga aan leenahay inay runtii ay bandhigyada noocaasa ama aan qabanaynay ama aan runtii taabagelinay ama kuwa aan rajeynayno mustaqbalka inaan qabanno inay ayagu hogaaminayaan boqolkiiba boqol marka dhalinyarada runtii maanta wax baratay oo dalkan wax u baratay oo runtii alxamdulilaahi markii horena markii dalkaani gumaysiga uu ku jiray ayagu u ahaa gobonimada dhaliyay ayagoo intaan ka yar intaan ka tacliin yar intaan awooddu ay ka liidato aqoonu aysan jirin maanta oo aan leenahay dhalinyaro fara badan oo jaamiciyiina oo alxamdulilaahi dalkeena uu ku faani karo oo jaamacaduhu meel walba ay ka furan yihiin dibad iyo gudaba wax lagu soo bartay runtii maanta waxaa ilaah mahadiisa inay ganacsiga ayagu hogaankay u hayaan gaar ahaan carwooyinkan ama bandhigyadan lagu soo bandhigayo dalka oo wejiga fiican ee dalku uu leeyahay la tusaayo Soomaalidana la tusaayo la dhiirigelinayo adduunkana la tusaayo runtii gaadiidka waxa weeye shaqo kuma jiro inuu ka mid yahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga inuu halbowle u yahay ama uu tiir u yahay waxaan dhihi karnaa waa tiirka ugu weyn waa tiirka ugu muhiimsan ee ganacsiga fududeeya mar haddii marka auto ay qabatay bandhigan ay ku taamayso inay sanad walba qabato aad ku taamaysiin inaad adduunyadii aad ku soo jeedisaan Soomaaliya haddana qabanqaabiyaashu sidii ay noo sheegeen ama halkan ay ku soo bandhigeen ay xiriiro badan ay helayaan oo dibadda ah oo aan la koobi karin waxaan aad u dhiirigelinaynaa ka wasaarad ahaan wasaaraddu waxay runtii ku guuleysatay kuna howlan tahay wixii shuruuca loo baahnaa ganacsigeenu ku taabageli lahaay oo ku hana qaadi lahaay runtii iyo siyaasadihii ganacsiga ayay la garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed runtii ganacsatada lah dhalinyarada ah hal abuurka leh marka haday shuruuc noqon lahayd iyo haday dhiirigelin maalgashi noqon lahayd iyo haddii dalka la ganacsadeenu ama dadkaynu ay maalgasho lahaayeen iyo haddii lagu soo adduunyada ganacsatada lagu soo jeedin lahaa dalkaba intaba wasaaraddu way ku howlan tahay wax badanna way ka qabatay iyo haddii loo samayn lahaa suuqgeyn waxa muxuu ahaa badeecada Soomaalidu ay soo saarto dalkaynu uu soo saaro ama dalkaynu caanka uu yahay haday noqon lahayd xagga beeraha iyo kalluunka iyo xoolaha intaba laakiin dhamaantood waxyaabahaasi waxa weeye horumar lagama gaari karo haddii aan gaadiidka laga hormarin gaadiidku ma aha hadda kii awtada ama baabuurta kaliya ayaa halkan ka muuqda
laakiin waxa weeye noocyadiisa kala duwan, ama hadduu noqon lahaa tareen, ama hadduu noqon lahaa gaadiid bad, hadduu noqon lahaa, ama hadduu noqon lahaa gaadiid cir, intaba iyo kanulka intaba waxa weeye waa horumarka aan tiigsanayno. ayagaa halbowlo ah, ayagaana fuudeeya. marka runtii aad ayaan u soo dhaweynaynaa, aad ayaan raalli uga nahay. sanadkaana waxaa noo hirgalay waxyaabo badan oo runtii ilaahay mahadiis waxa ah in waxyaabo badan oo higsanaynay oo ganacsigeena kor u qaadi kara, oo ganacsigeena kabi kara, oo aan isleenahay maanta haddii aan hirgelino in wasaaraddu ay ka shaqaysay, golayaasheenu ay runtii ayagana sharci dejintu ay ansixiyeen, runtii ay meel marna ay noqdeen intooda badan. gaar ahaan waxaa ka mid ah sharciga shirkadaha, waxaa ka mid ah tayadhowrkii hay-adiisii iyo sharcigiisii oo aan rajaynayno dalkeennu inuu tayadhowr yeesho, oo waxa dalkeenna soo gelaya iyo waxa ka baxaya iyo waxa dalka gudihiisa laga soo saaraya intuba ay noqdaan wax tayadooda runtii aad lahana qaadi kara, caafimaad ahaan iyo bedqab ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba runtii dadkeenna badbaadinaya oo dhibaatooyin badan maanta u nugul. oo alxamdulilaahi waxaan rajaynaynaa marka intaas ka sokow wixii shuruuca oo adduunka aan kula dhaqmi lahayn oo dalkeenna ku soo jeedi lahay runtii ayagana aad looga shaqeeyey. waxaa ka mid ah waxyaabaha runtii hadda ididida leh oo laga shaqeeyey heshiis la yiraahdo miga oo runtii ku soo jiidaya maalgashiga caalamiga ah dalkeenna ku soo jiidaya, ama ganacsatada ama muxuu ahaa inaysan hantidooda inay geliyaan dadka Soomaaliyeed ku dhiirgelinaya dalkeena inay geliyaan. marka runtii dalka waxaa ka socda waxyaabo badan oo ididilo leh, waxaa ka socda runtii wejiga wanaagsan ee Soomaaliya ayaa maanta muuqanaya oo dhinac walba leh. marka waxaan rabnaa bandhigyada noocaana in laga yeesho runtii isu duwidooda iyo qabanqaabadooda iyo runtii abaabulkoodu inay noqdaan mid loo wada jiro. runtii in waxaan rabnaa in hadda wixii ka dambeeya runtii dadaalo badanaa la muujiyey in coordination laga yeesho biidni illaahi alkariim. ka wasaarad ahaan waxaan runtii diyaar u nahay inaan dhiirigelinno, soona dhaweyno. marka waxaan rabnaa runtii bandhigyadaas la qabtay oo faraha badan oo runtii qaybo badan ama sektarro badan leh in dhammaantood intooda badan wasaaraddu waxay ku howlan tahay ama ay rabtaa ama qorshe u ah sanadkan intuusan dhammaan in la qabto carwo ama bandhig weyn oo ka tarjumaya barnaamijyadii dalka lagu qabtay iyo kuwaan la qaban dhammaantood, oo sektarrada kala duwan laga heli karo si hal meel la isugu keeno wax soo saarka dalka iyo ganacsigiisa kala duwan. marka la qabanayo bandhigaasna waxa weeye bandhiga awtada ee Muqdisho qayb ayuu ka ahaan doonaa. marka runtii marka aad ayay yidilo u leedahay, aad ayaan ugu faraxsannahay. waxyaabaha kale noo qorshaysa waxaa ka mid ah in meelihii lagu qaban jiray oo qarankan uu lahaa oo ay ka mid tahay carwadii qaranka in maalin maalmaha ka mid ah ay gacanteena soo geli doonto, oo aan rajaynayno intaan sanadkan u dhammaan in carwadii qaranka la helo si loo helo meelo ku habboon oo lagu qaban karo bandhigyadan, oo runtii u suura gasho in annaga keliya annaguna aan ka soo qayb galno muxuu ahaa meel ku habboon loo helo, caalamkuna nagala soo qayb galo oo arrin aad u ballaaran ay noqoto. marka ugu dambeyn aad ayaan u bogaadinayaa, aad ayaan runtii ugu faraxsannahay, aad ayaan u dhiirigelinaynaa bandhigan aad qabateen. waxaan rajaynayaa biidni illaahi alkariim sida aad sheegteen inaad uga midho dhalisaan, annaguna waa idin garab taagannahay, sababtoo hadda waan aragnay inaad wax qaban kartaan, inaan wax qaban karno dhammaanteenna waan aragnay. marka waxaa weeye waxaan joognaa marka meel aan ka sii soco karno, meelaan alxamdulilaahi wax higsanayno. marka dhalinyarada gaar ahaan aad ayaan ugu bogaadinaa, aad ayaan alxamdulilaahi barnaamijyada noocaana ayaan u soo dhaweynaynaa, aad ayaan u soo dhaweynaynaa hal abuurkiina. marka qabanqaabiyaasha iyo dadkii gacanta ku siiyay dhammaantood, shirkadihii halkan laga sheegay, shirkadii qabanqaabisay, dhalinyarada halkan laga xusay,
dhammaantiin waa aad ayaad u mahadsantihiin waxaan idin leenahay guulaysta ka sii wada halkiina waxaa weeye alxamdulilah Soomaaliya mustaqbalkeedu idinka ayuu ku xiran yahay waxaa weeye dhalinyarada ayuu ku xiran yahay mustaqbalka dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in nabadgelyadeena iyo dhaqaalaheena iyo siyaasadeena iyo sector walba haddii ganacsigu uu hormaro haddii shaqo abuurku oo dhalinyaradu ay shaqo hesho haddii dhalinyaradu alxamdulilah dhaqaalaha ay ka qayb qaadato in sectorada kalena ay horumarka noocaas ay gaaraan marka sida wasiirkii Omar uu sheegay waxa weeye mustaqbalka dalkaani waxa weeye annaga uu nagu xiran yahay gaar ahaan dhalinyarada ayuu ku xiran yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.